kani ma aha macalin kooxeed laakiin waa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo koox kubadda cagta ah ku siinaya garoonka magaalada Dhuusamareeb bixinta casharo la xiriira dhisidda ciyaaryahanka sida jimicsiga iyo orodka. markii uu soo dhamaaday kadib jimicsiga ayaa ra'iisul wasaare Kheyre waxa uu mid u salaamay dhalinyaradii ay isku arkeen garoonka kubadda cagta ee Dhuusamareeb ku yaala. dhalinyarada ayaa ra'iisul wasaaraha u sheegay in ay ka jirto garoonka kubadda cagta Dhuusamareeb baahiyo badan, ha yeeshee waxaa dhalinta loo sheegay in roog cagaaran loo dhigayo garoonka. فرين أبو غالي كده سيتين هرتا فنمت في عندين وفي عنا درون كان وحلقي وحلقي كان إنا إدين شاقو إن روب لإدين دي inkastoo muuqaalka uu ka soo muuqday ra'iisul wasaare Kheyre oo la jimicsanaya dhalinta Galgaduud ay ku jiraan qaar ka mid ah ilaaladiisa qaaska ah ayaa haddana waxa uu muuqdaa bandhigan mid uu ku dhiirigelinayo dhalinta. si kastaba Kheyre ayaa inta badan waxa uu soo bandhigaa fantasiyo ay hadal hayaan bulshada Soomaaliyeed, ha yeeshee ra'iisul wasaaraha ayaa u jooga deegaanada Galmudug xalinta khilaafaadka mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo ku kala aragti duwan hanaqaadka doorashada deegaanada Galmudug, taas oo hadda u muuqata in lagu guuleystay xalinteeda.